bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal halkan waa xanta wararka haddii aad ku cusub tahay ku biiro ka mid noqo daawadayaasha ku xiran halkan si aad u hesho warar warbixino iyo dhacdooyin aanu falanqeyni faaqadaad ku sameyno waxyaabaha daba doontaan barnaamijkan aan idinkugu soo gudbin doona hadduu alweyne uu qadaro waxaa ka mid noqon doona sidee ayuu kusoo gabagaboobay laguna soo afjaray weerarkii ay al-shabaab ku qaadeen hodhel ku yaala Kismaayo ee ku bilowday codsashada in loo dhiibo laytarka. waxaan idiin soo gudbin doonaa xogo iyo dhacdaan inta ku gadaamanayno barnaamijkan ku falanqeyn doono kuna faaqidi doona hadduu alweyne raalli ka noqdo waxyaabaha kale aad ku daawan doontaan barnaamijkan aan idinkugu soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doona daawadayaal saaxiibayaal shabaab ku xukunaa dil toogasho ah oo lagu fuliyey xukun qisaas ah. waxaan idiin soo gudbin doonaa hadduu alweyne raalli ka noqdo toogashadaasi oo ka dhacday Muqdisho. warbixin ayaan idinkugu haynaa sidoo kalena Somaliland weerar ayaa ka dhacay khasaare ayaa jira. waxaan idiin soo gudbin doonaa dad maqaaxi ku caawinayay oo weerarkaasi loo geystay waxyeeladu intee ay gaarsiisan tahayna barnaamijka ayaan ku falanqeyn doonaa. soo dhawaada oo ku biiro daawadayaashii nagu xiran si aad u heshaan warar dhacdooyin iyo warbixino falanqeed aad ku cusub tahay la garay sidoo kalena la wadaag saaxiibadaada warar iyo dhacdooyin aanu halkan ku falanqeyno kuna faaqina daawadayaal. sidee ayaa lagu soo afjaray weerarkii al-shabaab ku qaadeen hodheelka Kismaayo ku yaala barnaamijkan ayaan ku soo gudbin doonaa hadduu alweyne raalli ka noqdo. saraakiisha booliiska Soomaaliya ayaa sheegay in 9 qof lagu dilay AK-47 kalena lagu dhaawacay weerarkii lagu qaaday hoteelka ku yaala magaalada Kismaayo ee koonfurta Soomaaliya kaasi oo mas'uuliyadiisu ay sheegteen ururkaasi al-shabaab. weerarkaas ayaa soo gaaray ilaa iyo habeennimadii xalayto. weerar kale la beegsaday hodheelka Tawakal ayaa noqonaya kii ugu dambeeyay ay fuliyaan al-shabaab oo horey weerar noocan ah u geystay. waxaa jira sida xogo aanu helnay sheegayaan in dad laga soo badbaadiyay hoteelka. waddo weyn oo hormarta hoteelka ayaa la sheegayaa in dad badan ay marayeen xilliga weerarku u dhacayay, dadkaasi oo ay ku jiraan ardayda iskuulka oo xilligaasi laga soo daayay. sida lagu soo afjaray weerarku haddii aynu egno magaalada Kismaayo ayaa inta badan nabadooneed tan iyo markii al-shabaab laga saaray 2012. weerarka ayaa bilowday duhurnimadii shalayto abaara 6:45 ee waqtiga maxalliga ah markaasi oo gaari waxyaabaha qarxa laga soo saaray oo ku qarxay albaabka hoteelka Tawakal. waxaa la soo afjaray qiyaastii 7 fiidnimo maqribkii kadib waxaana la dilay dhammaan raggii weerarka soo qaaday oo tiradooda lagu sheegay 3. mas'uuliyiin Jubbaland oo hadlay warbaahinta maxalliga ah ee Muqdisho la hadlay ayaa sheegay in markaasi ilaalada uu ka codsaday ninka isqarxiyaha ahaa inay u dhiibaan laytar oo uu doonayay in uu markaasi ka codsaday isagoo markaasi sitay darees sidoo kalena iska dhigayay nabad sugidda Jubbaland. dadka dhintay waxaa ka mid ahaa arday ka soo baxday iskuul u dhow hoteelka la weeraray sida uu sheegay wasiirka amniga Jubbaland Yuusuf Xuseen Cismaan. waxa uu intaa raacinayaa in 4 qof oo weerar ka fulinaysay oo uu ku jiray nin isku qarxiyay gaarigii albaabka lagu beegsaday ay dhammaantood goobtaasi ku wada dhinteen. wasiirka ayaa xaqiijiyay bayaan horey uga soo baxay booliiska isagoo warfiidyaanka u sheegay in ninkii ugu horeeyay uu isqarxiyay kadibna ay ciidanka ammaanku dileen 3 nin ee kale ee gudaha gashay oo midkood uu soo gaaray cishaha iyo maqribka intuu u dhaxay markaasi ka dhaxle. meeshan ma ahayn goob dawladdu ay raadsato ayuu yiri sargaal ka tirsan booliiska oo lagu magacaabo Cabdilaahi Ismaaciil oo inta raaciyay waxa uu ahaa hotel caadi ah oo ay dadka rayidka ah degaan. al-shabaab oo war soo saarta ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarka socday 6 saacadood iyadoo intaa ku dartay in hoteelku ay shir ku lahaayeen xubno ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland ee xarunteedu tahay magaalada Kismaayo. ma jiraan warar madax badan oo xaqiijinaya arrintaasi. ciidamada ammaanka ayaa horey u sheegay inay si degdeg ah u soo gabagabeyn doonaan howlgalka hoteelka Tawakal oo ku yaala bartamaha magaalada. waxaa inta badan dega siyaasiyiinta sidoo kale waxaa halkaasi taga dad ay ka mid yihiin odayaasha dhaqanka. wuxuu ka mid yahay hoteelada caanka ah ee ammaankooda aadka loo markaasi ilaaliyo. askar isku dhaf ah ayaa fulisay xukun dil ahaa
oo lagu fuliyey 2 ka mid ah xubno al-shabaab ah oo dilal hore lagu soo qabtay. Shucayb Cabdullaahi Maxamed iyo Saadiq Cabdi Jabbaar Cumar labaduba waxay ka tirsanaayeen xubnaha dilayaasha ah ee al-shabaab ee dadka markaasi qaarijiya ama falalka dilalka geysta. Fagaraha School Buluusiyo ee magaalada Muqdisho ayaa saakay Isniintan la geeyay tiirka cadaaladda iyagoona lagu fuliyey xukun markaasi dil ah. Waxa markaasi ay ku muteysteen 10 qof oo ay naftooda u aqoonsadeen meelo kala duwan. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa kiiskooda oo muddo markaasi sanadaha gacanta ku haysay cadeymo lagu helay faldambiyeedka lagu soo oogay kadib xukun ku riday iyagoo ugu dambeynna maanta lagu fuliyay dilka. 2 nin ee la toogtay saaka ayaa ahaa ardaydii macallin Ilka Case oo isaguna 2 sano ka hor tiirka School Buluusiyo la geeyay halkaasina lagu markaasi dilay November 2020. Ciidamo haram cad ah iyo askar ka tirsan xoogga dalka ayaana wadajir toogashada u fuliyay taas oo kadib 2 meed lagu markaasi xabaalay qabuuraha School Buluusiyo. Xeelali ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa warbaahinta la hadlay Muumin Xuseen Cabdullaahi waxaanu sharaxaad ka bixiyay labadaasi shakhsi ee la toogtay ay dilku ay geysteen intii ay markaasi kooxdaasi ay ka tirsanaayeen. Xubnahan ayaa markaasi lagu soo qabtay midkood isagoo markaasi doonayay in suuqa Soybiano ee qaadka lagu iibiyo uu markaasi rabay in uu ku toogto ama uu ku dilo haweeney qaad iibinaysay taasi oo uu markaasi ka badbaaday dhacdadaasi oo kasabtay in markaasi la soo qabto. Somaliland ayaa eegi doonaaye qasaare ayaa ka dhashay weer lagu qaaday dad ku caawinayay maqaaxi ku taala Somaliland. Inta la ogyahay 1 qof ayaa ku dhintay 2 kalena waa dhaawacmeen kadib markii dabley aan heebtooda la aqoonsanay rasaas weyn dad shacab ah oo ku caawinayay maqaaxi ku taala degmada Darar Weyne ee gobolka Sanaag ee Somaliland. Lama garanayo sababta keentay in dad maqaaxi ku caawinaya rasaas lagu furo iyo ujeedada ay weerarkaasi u soo qaadeen ragga dableyda markaasi ah iyo haddii ay jirto cid gaar ah oo ay beegsanayeen. Xukuumadda iyo maamulka Somaliland midna weli kama hadal weerarkan. Gobolka Sanaag ayaa waxaa ku badan weeraro aana qabiil salka ku haya isla markaana lacaga badan ayaa sanad kasta xukuumadda kaga baxda xalinta khilaafaadka qabiilku ay leeyihiin dad aanu la hadalnay oo markaasi iyagu ku sugan gobolkaasi. Wararkii ugu dambeeyay ee noocan ah oo kale in Somaliland ka ayaa dhacay 13 Agoosto kadib markii nin afka soo duubtay oo cararaya oo dad markaasi xabad la dhacay ama xabad ku furay magaalada Hargeysa. Weerarkaasi 1 qof ku dhintay qof kalena uu ku dhaawacmay. Ninka ay maalmo kadib ciidamada booliisku gacanta ku soo dhigeen kadib baaritaan shacabka markaasi lala kaashaday. Dhinaca kale magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa weerarada noocaani oo kali ah ay markaasi si istaba joog uga dhacaan welina xal buuxa loogama helin. Si kasta oo xaaladda noqoto daawadayaasha iyo saaxiibada sida tooska ah nagu xiranow. Somaliland waxay ka mid tahay meelaha Soomaaliya ugu nabdoon iyada oo ay markaasi ay ka jirto nabadgelyo inkastoo inta badan meelaha gaar ay markaasi ka dhacaan waxyeelo taasi oo inta badan dhalisa in ay markaasi xaaladahaasi inta badan loo tiriyo arrimo la xiriira in ay jiraan aanooyin qabiil sida markaasi Laascaanood iyo gobolkaasi Sool oo iyadu weerar ay ka dhaceen mas'uuliyiin lagu dilay kuwaas oo iyadu loo tiriyay inay yihiin markaasi xubno iyagu markaasi ku dhumaalaysanaya halkaasi taasi oo keentay in shacab gooni ah laga soo saaro halkaasi welina ma aysan joogsan arrintaasi taasi oo iyadu weli sii muuqata. halkan waa xanta wararka haddii aad ku cusub tahay fadlan ku biiro ka mid noqo daawadayaasha inagu xiran adigoo leegaranaya sheergaranaya qaybta hoosan araadaada waxay kula tahay ku dhaafaya. fadlan ha hilmaamin inaad leeg saarto sidoo kale la wadaagto saaxiibadaada warar warbixino iyo dhacdooyin aynu falanqeyn iyo faaqidaad ku sameyno daawadayaal saaxiibayaal. taanu barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doono waxaan idin dhaafnaa oo idinkaga tagnaa sida iyo amaano Allah nabadino saaxiibayaal daawadayaal. halkan waa xanta wararka fadlan nagu soo biir nagu soo boogo adigoo subscribe saaraya sidoo kalena gambalka furanaya sidoo kalena leegaranaya sidoo kalena share garanaya daawade.